الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بين سبحانه وتعالى ومهدنا قينا إنك لقيد الإسلام الله إنه شرفي diintii diimaha u dambeysay uguna fadliga badnayd inoo soo diray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu ku khatimay uu ku gabagabeeyey rusushii iyo ambiyadii uu usoo diray khalqigiisa biidni illaahi subxaana wa tacaala. waxaan odhan doonaa kelimaad isxusuusina oo ku saabsan camalu lmar'ati almuslima fi lyowmi walleyl. gabadha muslimadda ah camalka wanaagsan ee la gudboon inay la timaado ama ay samayso habeenkiiyo maalintii. waxaynu ogsoonahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu inoo abuuray marka koobaad inaynu caabudno. waxaa kaloo dhan ilaahay subxaana wa tacaala uu ina siiyey nicmo adduunyaahi waa wax cibaadadaasi inagu caawinaya oo inoo suurto gelinaya. laakiin ujeeddada adduunyadan aynu u joognaa waa in allah subxaana wa tacaala khaaliqayna abuuray aynu caabudno. ilaahay baa yihi wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun. jin iyo insi wax kale uma abuurin, ujeeddada aan abuurkooda ka lahaa waa inay caabudaan buuhi ilaahay subxaana wa tacaala. cibaado ilaahay u gaara oo u barax tiran oo ka maran shirki oo qofku uu kaga dayday nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam. cibaadadaasi ma aha mid ku kooban waktiyo gaara. qofka muslimka ahi noloshiisa oo dhan buu ka dhigi karaa cibaado, waayo wuxuu sameeyo qofka muslimka ahi ee diintu ay u ogoshahay waa laba midkood. wax marka horeba sidiisa cibaado u ah farala ama iyo waxaan cibaado ahayn laakiin arrin xalaal ah, dherigaad karinayso iyo khidmada iyo adeega guriga dhexdiisa aad ka samaynayso, arrin sidiisa cibaado waa maaha, laakiin isaga laftiisa cibaadaad ka dhigi kartaa. waxaad cibaado kaga dhigi kartaa inaad raaciso niyo wanaagsan oo ah wixii adiga kugu saabsan inaad cibaadada uga faa'iideysato o aada ugu xoogeysato, aada ugu diyaar garowdo. wixii cid kale aada u qabanaysana inaad u niyooto haddii ilaahay kugu faral yeelay fulinta faralka ilaahay, haddii kalena inaad caawiso oo ixsaan iyo wanaag aada u samayso cidda aada u qabanayso. qof kastoo muslima guud ahaan, gaar ahaan ruuxa dumarka ah ee muslimadda waxaynu leenahay marka aada u diyaar garowdo seexasho, halkaasaynu shaqada iyo camalka aynu ka bilaabeynaa. waxaan ku xusuusinayaa hurdadu inay tahay geeri yar. ilaahay baana subxaana wa tacaala geeri ku sheegay, allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowta wayursil اlأkhraa. ilaahay subxaana wa tacaala nafaha noolayaasha laba jeer buu oofsadaa. waa marka nafta lagaba saaro ee aanay kusoo noqonahayn ilaa la gaadho waktiguu ilaahay qadaray ama xukumay inay kusoo noqoto. waata geerida iyo dhimashada inagu aynu naqaan. nafta aan dhimanna ilaahay wuxuu oofsadaa marka qofku uu seexdo. waa mowtatun suqra, waa geeri yar. waxay u baahan tahay diyaar garow qofka muslimka ah markuu sii seexanayo, maaha inuu isaga seexdo sida noolayaasha kale aan caqliga lahayn ay u seexdaan. waxaa kula gudboon waktigii hurdada marka la gaadho arrimahaasi waxaa kow ka ah inaad naftaada xisaabiso waktigaas, waayo hurdada aada seexanayso waa geeriye inaad ka soo noqon doonto
ilaahay ruuxda uu kusoo celin doono ma ogin. in badan baynu aragnaa ama aynu maqalay dad seexday oo sidaa naftu ay kaga baxday oo quraacdii lasoo duldhigay markii lays yidhi u toosiya la arkay qofku isagoo midown. waktigaa waxaad isku daydaa wax allaaliya wixii gaf iyo khalad aad gashay, xaq ilaahay aad ka gashay ama xaq khalqi, inaad ka toobad keento oo aad ku seexato toobadkeen adoo masaxay oo baabiiyey oo istikfaar iyo toobadkeen ku baabiiyey wax allaale iyo wixii gaf iyo khalad aad gashay. waajibaad aad dayacday hadday jireen ha seexanin adigoon gudin waajibaadkaas. waxyaabo dembi ood isku ogtahay hadday jiraan, kuwo qalbiya, kuwo carab iyo kuwo xubnaha kale ay galaan, ha seexanin adigoon ilaahay subxaana watacaala uga toobad keenin. waa qodob aada iyo aada muhim u ah. haddii aad noolaato oo ilaahay ruuxdii iyo naftii uu kuu soo celiyo, waxaad shaqo maalmeedkii bilaabi doontaa iyadoo waraaqaha camalkaagu ay cad yihiin oo xumaan o dhan aad ka masaxday. haddaad geeriyootana khaatimo fiican bay ku noqon doontaa oo ilaahay baa lagu horgeyn doonaa adiga oo bilaa dembi oo dembiyadii oo dhan ka toobad keenay. arrinka labaad wuxuu yahay kula gudboon markaad sii seexanayso inaad tahaaro dhamaystiran aad ku seexato oo aada weysaysato. rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam weyse ayuu ku seexan jiray, waxaanu dhiiri gelin jiray qofku markuu seexanayo inuu weyse uu ku seexdo. arrinka saddexaad wuxuu yahay markaad seexanayso inaad ilaaliso aadaabtii iyo qaabkii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ina bare inaynu seexano. dhinaca bidaxa u seexanin, xagga midig u seexo siduu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, uma daji calaa shiqika alayman. waxaanay tilmaamaan xataa culimada caafimaadku qofka caafimaadkiisa inay qeyb weyn ka tahay inuu dhinaca midig u seexdo. markaad dhinaca midig dhulkaad dhigto waxaad ku seexataa oo noloshaadii maalinimo aad ku khatinta, aad ku gebagabaysaa ilaahay subxaana watacaala xuskiisa iyo dikrigiisa. aayatulkursida akhriso, waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay qofka akhrista inaanu shaydaan usoo dhowaanayn habeenkaas, xagga ilaahayna mid ilaaliyaa inuu uga imanayo. walaa yazaalu macahu xaafidu min allah aw min allahi xaafid. shaydaanna uma soo dhowaanayo qofka aayatulkursida akhrista. saas oo kale rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina baray qofku markuu seexanayo sidii uu ducaysanayo o kale gacmihiisa intuu saa u kala bixiyo, sida qofku markuu ducaysanayo uu yeelo, inuu ku tufo qul wallahu axad, qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas. kadibna jirhkiisa uu mariyo intan wajahadda iyo inta kale wixii uu ka gaari karo. waa aadaabtii hurdada ee nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray, ummaddiisana uu baray. waa qof muslima oo seexanaya iyadoo talagalkiisu uu yahay inay dhici karto hurdada inaanu ka soo kicin. kaas ayaa sidaa iyo qaabka noocaasiya u seexda. saasaad ku seexatay adoo hurdada u maray waddadii sharciga ahayd ee laga dhaxlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waxaynu ogsoonahay inta badan ma dhacdo qofku markuu gamo ilaa waagu uu ka baryayo ama uu si dhamaystiran usoo toosayo inuu hurdo un ku jiro. waxaa dhacdo qofku marar badan inuu baraarugo. mar kastoo aada baraarugto waxaad ku dadaashaa ilaahay subxaana watacaala inaad xusto. gaar ahaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka habeenkii soo baraaruga waktigii hurdada iyadoo lagu jiro toosa ay yidhaahda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir.
inuu ilaahay subxaana watacaala qofkaa u dembi dhaafo wixii dembi iyo khalad ka dhacay ilaahay waa u dhaafayaa qofku markuu soo baraaruga yidhaahda tawxiidsada aa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir. marka aada soo toosto ee hurdadii aada ka soo kacdo ilaahay subxaana watacaala xus. nabi maxamed wuxuu odhan jiray alxamdu lilahi aladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushuur. ammaan iyo mahadnaqba waxaa leh oo aan u mahadnaqaya aan ammaanaya allahana nooleeyey markuuna dilay kadib. hurdadu waa geeri sayn hore u sheegnay. markaad soo toosto qof dib u noolaado kale ayaa tahay. ilaahay uga mahadnaq inaanu ilaahay hurdadii kugu qaban ee fursaduu kuu siiyey in cumri dambe aada sii yeelato ajashaadii waktiga ay kadib dhacdo. khalad iyo gaf waxaad lahayd aada saxdo, wanaag iyo sahay aakhiro waxaad ka gaabisayna aada fursaddaa kaga faa'iidaysato. wa ilayhi nushuur buu odhan jiray nebigu, xagga ilaahay baa loo noqonaya. waxaa rasuulku ducada uu ku tilmaamay hurdada iyo kasoo toositaanka laga soo toosayaa qofka muuminka ah inay xusuusiyaan arrimahaasi waxaa kow ka ah qofku inuu seexdo hurdada uu kasoo tooso o aanu ku dhimani waa nicmo ilaahay, ay tahay ilaahay subxaana watacaala inuu uga mahadnaqo. waxaa arrimahaasi kamid ah qofka muslimkaa hurdadu waa inay geerida xusuusiso, oo marka aada hurdo kasoo toosto qof dhimasho kasoo noqday oo kale waa inaad u dhaqanto. waxaa kamid ah arrimaha uu rasuulku ducadan uu ku dhex sheegay iyo fariimo ay xambaarsan tahay, waa inaad ku xusuusato hurdada albacthu wannushuur. addoomuhu marka ay dhintaane la aaso in xabaaladu laga soo saari doono. wa ilayhi nushuur. marka suurta la afuufo khalqiga oo dhan waa la soo saari doonaa, ilahay baana loo geyn doonaa. qof walibana wuxuu la kulmi doonaa wixii uu hormarsaday khayr iyo shar. faman yacmal mithqaala daratin khayra yarah waman yacmal mithqaala daratin shara yarah. markaad hurdada ka soo kacdo weysayso, camal maalmeedkaagu ama shaqo maalmeedkaagu dikriga ilaahay ha ku bilaabmo. waxa ku xiga ha noqdo haddii gabadhu ay ku jirta xaalad salaad loo ogol yahay inay weysaysato oo ay tukato 2 ragcadood ee salaada subax ka horeeya. habeenkii waynu ogsoonahay waxaa la sharciyey salaado aada u qiimo badan o dhaa salaatuleyl. dadkuna waa 2. qof aan naftiisa kalsooni badan aan ku qabin inuu toosayo habeenka dhexdiisa, qofkaasi waa inuu salaada cishaaye markuu tukadaba inta aanu seexan salaatuleylka waktigeedii waa soo galaye inta uu ka tukan karo waa inuu ka tukado. qofka la qabsaday ama naftiisa ku kalsoon salaatuleyl u kici kara saqbarhkiiyo wixii ka dambeeya waktigaasi ayaa fadli badan, oo ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay yaa i baryayo wuxuu weydiista aan siiya, yaa dembi dhaaf rabaan u dembi dhaafaa, yaa wax iweydiisanaya wuxuu iweydiistay aan siiya. marka waagu uu beriyo sida aynu sheegnay aada usoo toosto ee aada weysaysato 2 ragcadood ee salaada subax ka horeeya ha fududaysanin. adduunyadaasi aynu aragno samadeeda iyo samooyinkeeda iyo dhulalkeeda iyo waxa dhex yaalaba isku dar, 2 ragcadood baa ka fadliya khayr badan. rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi rakcata alfajri khayru min addunya wamaa fiiha. 2 ragcadood salaada subax ka horeeya waxay ka khayr badan yihiin adduunyada iyo waxa dhex yaala. waayo adduunyadu way baaba-aysaa, laakiin 2 ragcadood waa raasamaal qofka u hadhaya. oo yowma alqiyaama
sabab u noqon kara ilaahay inuu badbaadiyo iyo janno qofki inuu galiyo darajaad sare inuu helaba sidaa awgeed nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam sida caaisha oo xaaskiisii ahayd ay ka sheegtay labadaa ragcadood ee salaada subax ka horeeya maa kaana yadacuhuna fii safarin walaa xadar hadduu safar iyo socdaal yahayna nebigu kama tegi jirin hadduu negi yahay oo baradiisa uu joogana rasuulku calayhi salaatu wasalaam kamuu tegi jirin saasuu ugu dadaali jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam labadaa ragcadood marka aad tukato kolley waxaa la tukanayaa marka salaada subax waktigeeda uu soo galo ka dambe la eedaamo waktiga udhaxeeya adinka iyo aqiimka wakti aada u qiimo badan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inuu ka mid yahay waktiyada ducada la aqbalo ilaahay subxaana watacaala xus oo fursaddaa ka faa'iideyso oo rabbigaa subxaana watacaala bari salaada subax ruuxa dumarkaahi iyadu jamaaco waxaa laga yaabaa inaanay tegin faralla kuma aha gurigeeda inay ku tukato ayaana u khayr badan siduu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa buyuutuhuna khayru lahuna guryahooda u khayr badan marka waajib kuma aha inay aqiimka la sugto mar haddii salaada waktigeeda uu soo galo waad iska tukan kartaa mar haddii la eedaamo waktigeeda uu soo galo inta la aqiimayo ay tukan inaad sugtaa waajibadee kuguma aha waxaan taa usoo dhexgelinaya waa su-aalada jeer dumarku ay isweydiiyaan salaada waktigeedii mar hadduu soo galay ood gurigaa ku tukanaysa waad iska tukan kartaa ha la aqiimo ama yaan la aqiimin aqiimku cidduu ku saabsanya waa dadka masaajidka jooga adiga kuguma wajahna aadaankaa ku khuseeya oo daliil iyo calaamad kuugu ah salaadaa waktigeeda inuu soo galay salaada subax labada ragcadood markaad ilaahay subxaana watacaala aada u tukato ku dadaal adkaarta iyo ducooyinka salaada ka dambeeya ee nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay isla markaana uu ku dhaqmi jiray oo markaad salaamo naqsato 3 jeer waxaad tidhaahdaa astakfir llah astakfir llah astakfir llah oo macnaheedu uu yahay ilaahay baan weydiisanayaa dembi iyo khalad waxaan galay inuu iga dhaafo ilaahay baan asturaad weydiisanaya iyo inaanu ifadeexadayn ilaahay ceebahayga aanu dabadda iyo banaanka soo dhigin waxaa dikrigaa loo sharciyeeyey xaaladdaas qofku markuu cibaadeysto si aanu shaydaanku u afuufin oonu u odrhan waad wanaagsan tahay oo waad khayr badan tahay oo waxba kaama khaldana markaa cibaadooyinka dabadood in ilaahay subxaana watacaala loo istikfaarsado salaadoo qura maahee meelo badan bay soo aroortay oo xajku uu ka mid yahay waxaa ka mid a ducooyinka iyo dikriga rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu akrin jiray inuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ama uu akrisan jiray qul wallahu axad qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas salaadaha dabadooda salaada subax iyo salaadaha kaleba iyo adkaaraha iyo ducooyinka kale ee faraha badan allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta ya da ljalaali walikraam qofka muslimka ahina si u noqdo qof ilaahay ku xidhan oo xaalad walba ilaahay xusaya oo ammaanaya waa inuu barto ducooyinka kala duwan ee xaaladaha kala duwan rasuulku u akrin jiray ee uu ina baray salaadaha dabadood ku akrin jiray iyo xaalad walba u gaarka ah dad wax akrinayso kitaabkeena xisnu muslimka la dhaa soo iibso isagay ku yaaliina ka akriso iyadoo la macnaynayo af soomaali lagu macnaynayana in badan baa culimo af soomaali ku hadlaysa ay duubeen waad dhegeysan kartaa adkaartaasi aada macnahooda u fahamto oo aada ugu khushuucdo iimaan ay kuu kordhiso inaad dhegeysato culimada macnaynaysa aada iyo aad bay muhiim u tahay salaada subax dabadeed
haddii marka aanay jirin hawl kuu taalo aad ku dhaqaaqaysaa, waxa fiican halkii aad ku tukatay inaad sii fadhido adoo ilaahay subxaana watacaala xusaya oo tasbiixsanaya subxaana allah, alxamdulilah, laa ilaha ila allah, allahu akbar, laa xawla walaa quwata ila billah. markaad adkaartii salaada aada dhamayso oo tasbiixduba ay kamid tahay inaad 3 jeer tiraa subxaana allah, 3 alxamdu lilah, 3 allahu akbar, waa 99 marka la isku daro. marka boqolaadna aad tiraahdo laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kuli shayin qadiir. yay noqon salaadaadu salaad dabagoosa oo dikrina aanu ka horeyn kana dambeyna, oo marka aad salaamo naqsato ay isugu kiin dambeyso inaad ilaahay xusto subxaana watacaala iyo inaad ducaysato. ducada iyo baryada qofka ilaahay u baryayo salaada meelay ku leedahay oo ay tahay in lala eegto. dad badan markay salaada ka baxaan ayay ducaystaan. qofka bani aadamka aad wax ka doonayso inta aad hor taagan tahay iyo marka aad ka tagto bay fiican tahay, aadaabta wanaagsanina ku jirtaa waxaad ka rabta inaad weydiisato. ma intaad hor taagan tahay aad qaabilsan tahay, mise markaad ka hor dhaqaaqdaad sii jeesato? qof waliba wuxuu fahmi karaa intuu hor taagan yahay qofku iyo uu qaabilsan yahay in dhaqanka fiican uu yahay ciddaa wuxuu ka raba inuu weydiisto. marka qofku inta uu salaada ku jiro ilaahay buu subxaana watacaala qaabilsan yahay. marka uu salaada ku jiraa buu ilaahay ugu dhow yahay xaaladaha kale. marka ducada salaada ha dhaafinin oo salaamo naqsiga kadib ha geynin, salaada dhexeeda ku ducayso. oo nabigu calayhi salaatu wasalaam meelaha uu sheegay in lagu ducaysanayo waxaa kamid a sujuudda. aqrab maa yakunu alcabdu min rabbi wahuwa saajid faakthiruu fiihi min adducaa faqaminuu an yustajaaba lakum. qofku wuxuu rabbigii ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay. marka aad sujuudsan tihiin ducada farabadiya buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. ducooyinka waxaa u fadli badan kuwa qur-aanka ku jira sida rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaaba naar. kuwa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaysan jiray yaa xayun ya qayuum biraxmatika astagiif aslix lii shaani kulah walaa takilni ilaa nafsi طarfata cayn. ducooyinka kale macnahooda uu sax yahayna qofku waa ku ducaysan karaa. haddaad garanaysa kuwa iyaga kuu fiican, haddaad af carabi garanaysa ku ducayso sujuudda dhexeeda. haddaanad garanahayn afka taqaano ilaahay ku bari. duca salaad ma jebiso. af soomaaliya, af ingiriis iyo af xabashi iyo af kastoo ilaahay lagu bariyo waa hadal ilaahay lala hadlayo. duca salaad ma jebiso. qofkii qof hadlay noqon maayo. waxaa kaloo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo tilmaamay qofku markuu atixiyaadka salaada u dambeeya uu akriyo ee nabigana calayhi salaatu wasalaam uu ku saliyo inuu markaa wuxuu ilaahay ka doonayay ilaahay weydiisto. uma liyakhtar min almas'alati acjabahu ilayh. markuu atixiyaadkiiyo saliga nabiga dhameeyo wax allaaliya wuxuu muraadkiisu yahay ilaahay subxana watacaala ha weydiisto, waa intaanu salaamo naqsan. marka xaaladahaas ay tahay inuu qofku ducada uu ku dadaalo oo salaada intaanu qofku ka bixin inuu ku dhex ducaysto ayaa sunihii nabiga calayhi salaatu wasalaam. maruu ka baxana adkaaraha dikriyada soo arooray qofku inuu akhristo. marka halkii aad fadhida aad ka kacayso salaad ba aad ku tukatide, gaar ahaan haddii cidi kale ay kula joogto la wada hadhadlo, كفارة المجلس waa inaad akrisato. اللهma أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. adkaarahaas oo dhami barashay u baahan yihin iyo kutubta in laga akhristo, gaar ahaan dadka wax akhriya yaqaana ay soo iibsadaan. dadka kalena iyagoo duuban ay dhegaystaan oo say ugu celcelinayaan marka dambe waa la xifdin karaa, dusha ayaa laga qaybi karaa.
hawlahaaga adduunye ee mubaaxa ayaa sida nolosheena aynu ku naqaano intaa dabeed aad ku dhaqaaqi doonta sidaan bilowgiiba sheegay haddii aad caruurtaada iyo dadka gurigaaga joogo quraac u diyaarinayso iyo haddaad dhowr kaawiyadeynayso iyo haddaad maydhayso iyo haddaad hawl kale u qabanayso hawlaha guriga ka mid a had iyo jeeraale dhowr arrimood raaci arrinka koobaad wuxuu yahay hawsha adduunye intaad ku jirto oo dhan ilaahay subxaana watacaala dikrigiisa ha mooganaanin oo idinka arkayo dadka qaarkood markay hawl qabanayaan way heesaan hees hawleed wax la idhaha bay gabadh buraanburta mid gabayda mid heesta hees hawleed baa jirta oo hadalka uu odhanayo qofkan hawsha iyo shaqada hayaa shaqadan iyo hawshan buu ilowsiinaya wuxuu arkayaa un isagoo dhameeyey haddaba si aad adduun iyo aakhiraba u faa'iido oo hawshii aada isu dhaafiso ood isu ilowsiiso isla markaana qof ilaahay caabudaya aada u noqoto intaa shaqadaada haysa waxaad ku hadlaysaa ha noqdo xusaad ilaahay subxana watacaala xusayso dikriga ilaahay iska wad qur-aan akriso haddaad dusha ka hayso adoo laxooxdaadii dumanaya adoo dharkii maydhaya hawli kale adoo haya adoo masaxaya gurigii dikriga kale ilaahay subxana watacaala wad faa'iidooyinka xuska ilaahay waxaa ka mid a annahu yuciinu alcabda calaa injaazi alacmaal xuska ilaahay shaqada iyo camalka wuu fududeeyaa oo ilaahay subxaana watacaala marka aad ammaantay aada xusto ee aad muujisay ilaahay jacaylka aad u hayso ila qof waliba wuxuu jecel yahay buu hadalhayntiisa badiyaaye ilaahay subxaana watacaala camalka iyo shaqada uu kuu fududeynaya hees la qaado iyo muusig la dhegaysta iyo hadal kaloo laqwiyo in adduunyana waxba ku kordhina akhirana waxbaan ka tarahayn kaasi shaqadii hawsha uu kugu adkeynaya fatima waa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam inantiisii oo usoo cabatay waxay uga soo cabatay kadeedka iyo culayska ay shaqadu ku hayso waxay rasuulka alayhi salaatu wasalaam weydiisanaysay inuu rasuulku siiyo qof u shaqeeyo waktigaa addoomaa jiri jiray rasuulku alayhi salaatu wasalaam guriga isagoo ka maqan bay timi caaisha radia allahu canha ayay fariin u fartay inay arrinkaa ka doonayso nebigu alayhi salaatu wasalaam markii fariintii loo sheegay wuxuu tegay gurigii faadumo faadumo saygeeduna waa cali bin abi aalib radia allahu canhu rasuulka ilmaadeen ruma bay ahaayeen nebigu alayhi salaatu wasalaam iyagoo gogoshoodii jiifsaday ayuu u tegey nebigu alayhi salaatu wasalaam inta uu kala dhex fadhiistay ayuu la hadlay kollay qadiyadda ku saabsan sodogu inuu guriga inantiisa gala iyo iyadoo ninkeedii la joogo inuu la fadhiista iyo ma aha qadiyad daliil diidaya ama waajibinaya ama suno ka dhigaya u jiro qadiyad dadka dhaqankooda u hoggaansamaysa weyi waxay ku xidhan tahay un dhaqanka innaga waxaa laga yaabaa dhaqankeena inay kula yaro adkaato inuu sodogii intuu gurigii iska yimaado inantiisii iyo ninkeedii oo firaashkoodii jooga uu iska dhex fadhiisto laakiin dhaqamadu way kala duwan yihin waanay isbedbedelaan mar haddaanu dhaqanku shareeco ka hor iman ahayna qolo waliba caadadooda iyo dhaqankooda ilaashanayaan nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi alaa ucallimukum maa huwa khayru lakum min khaadim ma idin baraa wax idinka khayr badan qof idin shaqeeya adduunyadiina iyo aakhiradiinaba idinka khayr badan waa arrin aad iyo aada umuhim o ay tahay dumarku inay dhegeystaan waxaa laga yaabaa gabadha inay intaasoo hablood guriga joogaan kuwa ay dhashay kuwa qaraabo ah mararka qaarkood kuwa shaqeynaya oo haddana hawluu laga cabanayo maxaa taloo arrimaha adkeeyey ee hawshii adkeeyey waxaaba laga yaabaa sababtu inay tahay dikri la-aanta gurigii baan ilahi ba subxana wa tacala lagu xusahay rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi
markaad gogashiina timaadaan aad hurdo u diyaar garowdaan eed u qalqaalsataan 33 jeer subxaan allahi dhaha 33 jeerna alxamdu lilah 34 jeerna allahu akbar fadalikum khayru lakum min khadim so waxaad u sahlan maaha subxaan allah 33 jeer alxamdu lilah 33 jeer allahu akbar 34 jeer taasaa idinka khayr badan adduunyadiina iyo aakhiradiinaba qof shaqaalaayo idin shaqeeya inaad heshaan qofka shaqaali waa laga yaaba hawshii inuu kaa fududeeyo laakiin dikrigani laba arrimood buu wataa ilaahay hawshii kaaga fududeynaya iyo isagoo ah cibaado buuggaaga kitaabkaaga lagugu qorayo miisaanka xasanaadkana lagu saarayo yowma alqiyaama hadduu ilaahay subxaana watacaala uu ku aqbalo intaa dabadeed dumarku inta badan kolle gurigay joogaan guriga waa in lagu badiyo xuska ilaahay qur-aanka lagu akriyo suurat lbaqara guriga lagu akriyo shaydaan inaanu soo gelin buu sheegay rasuulku alayh isalaatu wasalaam qur-aanku waa baraka kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun waa kitaab ilaahay uu soo dejiyey oo khayr iyo baraka ay ku jirto meesha lagu akriyo sidaas oo kale barakeynayo ilahay uu ku barakeynayo saddexdii maalmoodba mar suurat lbaqara gurigaaga ku gooyo ku akri adigu haddaanad aqoon caruurtaa taqaana habliya inamaba ku akriya dheh shayaadiintaa ka yaaci doonta laa tastatiicuha albatala saaxir iyo falalow iyo jin iyo shayaadiini uma bac dhigi karaan suurat lbaqara adiguna isdayicin guriga waxaad ka dhigtaa qibla wajcaluu buyuutakum qibla yacnaa meel cibaado ka dhig meel ilaahay lagu xusayo ilaahay la isku xusuusinayo subxaana watacaala lagu cibaadaysanayo xataa ragguu rasuulku yihi ku yidhi ijcaluu min salaatikum fii buyuutikum salaadiina wax kamida guryihiina ku tukada salaadii sunno ahayd rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam salaadaha sunnaha badankooda gurigiisu kula noqon jiray wa baraka lilbeyt salaadaa lagu tukanaya guriga baraka uta dadkii guriga joogay baraarujin bay u tahay ikhlaaskii iyo camalku ilaahay daraaddi inuu noqdaana sidaasi ayay ku jirtaa qofku inuu gurigiisa meesha ugu qarsoonida badan ee cidina aanay arkahayn inuu ku cibaadaysto gurigaaga dhexdiisa waxaad ka noqotaa daaciya mid dadka xagga ilaahay ugu yeedhaysa guriga dadka jooga waa bani aadam khalad iyo sax intaba way leeyihiin waxaad noqotaa qof la dhex jooga mas-uuliyad baa ku saaran mas-uuliyaddu waxa koobaad ay kaa saaran tahayna waa dadka guriga jooga diintooda waynu ognahay dumarku siday isaga xil saaraan dadka in wax loo kariyo in dhar loo diyaariyo in guriga la hagaajiyo wakti fara badan baa taa lagu bixiya waxaanay u arkaan dumarku inay tahay hawshoodii iyo mas-uuliyad saaran laakiin taa mid kasii culus baa jirta oo dadku inay gaajoodaan iyo inay dambaabaan oo ilaahay u cadaabo teebaa sahlan gaajadaa loo qaatay gaajada waa adduunyaduna waa la iska dhaafi doonaa kolleyba waa la dhiman doonaaye si kastood u gaajooto adduunyada aada ugu kadeedanto haddaad aakhiro naar ka badbaadood jannada ku guulaysato waxaasoo dhan waad ilaabi doontaa wixii dhibaato adduunyada kugu helay oo dhan nebigu wuxuu yihi walmaratu raaciyatun calى ahli beytiha calى beyti zawjiha wa awlaadih wamas-uulatu can raciyati gabadha waxaa la raaciyey guriga ninkeeda iyo caruurtiisa waana la weydiin doonaa waxaa koobaada lagu weydiinaya waa dadkaa diintooda adaa had iyo jeeraale ubadka ag jooga salaada far nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam isagoo rag iyo dumarba la hadlaaya muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin caruurtiina salaada fara hebelow hooye tuko heblaayoy hooye tuko waa sheegisun markay 7 jir gaadhaan inta badan waa waktiga dadka badankooda ay ku garaadsadaan
weliba ilmaha yar markaad salaada farayso ilaahay ku xidh, ilaahay u tuko, dad ilaahay u tukata jannaad geli doontaa, arrimuhu ilaahay kuu fududayn doonaa. haka yaanu salaadii u arkin ilmaha yari shaqo adigu aad leeda u dirsanayso, oo adigu markaad farto ee aad amartana uu sameeyo, hadduu kaa baqari hadduu doona uu ku diidaba, marka adigu aanad u sheeginna uu iska daayo. ilmaha yar qalbigiisa iyo rabbigii isku xidh, oo salaada cidda loo tukanaya bar oo ku baraaruji, salaada waxaa laga helaya u sheeg addunya aakhiraba. wadribuhum caleyh wahum abnaau cashirin, 10 jir markay gaadhaan salaad la-aanta ku eedbiyay buuri nabigu caleyh salaatu wasalaam. inanka 10 jir gaadhiya inanta 10 jir gaadhay ee guriga salaad la-aan ku dhex joogtaa, baraka la-aan bay kula dhex joogtaa. edbi u hanjab, mararka qaarkood ku gacan saar, iyadoo adoon wax barariyo ku dhufanahayn iyo wax ka dhiijiyo wax jebiye toona. edbin ujeeda iyo baqagelin. waktiga barqada marka la gaadho wixii munkara saas oo kale sharciga khilaafsan gurigaa kala dagaala. wallahi shayaadiinta ayaa macsiyo kastoo guriga lagu sameeyaa albaabka ay ka furaysa, markaasaa gurigaasi uu bilaa baraka noqonaya oo khilaafku uu ku badanaya, oo xataa arsaaqdii ilaahay ku soo gashay barakada laga qaadaya. biilka xaguu ka dhacay, intaasoo lacagaanu qaadana haddana meel uun bay arrintu iska qaban laaday. albarakatu min allah, barakadu xagga ilahay bay ka timaadaa. ilaahayna wuxuu wax ku barakeeyaa daacadiisa in la adeeco, macsiyaduna baraka la-aan bay wadataa. gurigaaga in ilaahay lagu caasiyaha ogolaani, waa nicmo ilaahay subxana watacaala uu ku siiyey iyo meeluu ilaahay kugu asturay. waktiga barqada marka la gaadho, weliba barqa kulusha 9 subaxnimo, waktigaasi fursad aad u qaaliya baa ku jirta. dadka badankoodu waktigaa waynu aragnayo hawle adduunyay ku maqan yihiin, oo quluubtoodu ay ku jeedaan. kuwa shaqo adduunyo taga, kuwa waxbarasho taga, kuwa guryaha ka shaqeynaya. waa wakti inta ilaahay xusuusatay u cibaadaysata aad ay u yar yihiin. halkaa salaad baa ku jirta, ilaa salaatu duxa, salaada barqada, oo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay inay tahay salaada dadka toobadkeenka badane alla u noqoshadoodu ay badan tahay. salaatu lawaabiina xiina tarbidu lfisaal, 2 ragcadood baa u yar, 4 baad tukan kartaa, 6 baad tukan kartaa, 8 waad ka badin kartaa, laakiin 2 ayaa u yar. rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay inooga sheegay inuu ilaahay yihi ya bna aadam irkac liya 4 rakcaat fi awali nahaar akfika aakhirahu. ina aadanow, waa qof kasta lala hadlaya, rag iyo dumarba, 4 ragcadood gelinka hore ii tuko, gelinka dambe hawlihiisa anaa kaaga filaan doona, arrimo oo dhan anaa fududayn doona, dhib oo dhan anaa kaa difaaci doona. salaadaasi waa salaad aad iyo aada u qiimo badan, fadligeeduna u sareeyo. marka la gaadho waktigii duhurka, sidii salaada subax baa salaada duhur laga yeelaya, laakiin salaada duhur way ka sunayaal badan tahay salaada subax. 4 ragcadood, 2 waa laga horeysiin karaa, 4na waa laga horeysiin karaa, 2 waa laga dambaysiin karaa, 4na waa laga dambaysiin karaa. labaduba nabiga caleyhi salaatu wasalaam way ka soo arooreen. sidaad salaadii subax ula dhaqantay, salaada duhurna ula dhaqan, iyo salaadaha kale oo dhan. iyay salaadu noqonin waxa ugu dambeeya ee aad ka fikirayso iyo hawsha ugu dambeysa aad qabanayso. salaadaada u degdeg, waktiga u horeeya inaad tukato ayaa fadli badan. dimadaadana aad ku beri yeeli doontaa inaad sii noolaan doonto ilaa aakhirul waktiga laga gaadhayo garan maysa. inaad ilowdaabaa dhici karta, marka waktigeedu uu soo galaba salaada waxyaabaha kale ka horeysi. qofku inuu ilaahay jecel yahay waxaa lagu gartaa xaqa ilaahay buu ka kale iyo hawlihiisa adduunya u ka horeysiiya. qofkaasaa ilaahay subxaana watacaala jecel. maalintii oo dhan
dikriga iyo xuska ilaahay subxana watacaala noloshaada yaanu ka madhnaanin waktigaaga wax kamida diinta sii oo waxaad ku bixisaa barashada diinta ilaahay qur-aanka oo hadalka ilaahaya baro fadliga akrintiisa iyo barashadiisa inagama qarsoona nebi maxamed baa yihi khayrukum man tacalama alqur'aana wa callamahu axaadiidii nabiga calayh salaatu wasalaam baro cibaadaadkaagu yaanay noqonin kuwa ku socda bawsi iyo duulduul ay kugu soo gaadheen aqoon u yeelo oo ilaahay cilmi ku caabud si ay cibaadadu sax u noqoto iska sax salaadaada qur-aanka iska sax saasoo kale cibaadaadkii oo dhan ilaahay subxaana watacaala diintiisa wakti geli mas-uuliyad baa kaa saaran gurigaaga laga bilaabo jaarkaaga wanaagga gaadhsii hadday muxaadara jirta ugu yeedh haddii ay dumarku in badan bay dhacdo inay isu wareegaane khayr ha la isula wareego oo xan iyo dad la isku dira iyo laqwi iyo sheeko iyo qosol fara badan iyo waktiga yaan lagu luminin in la sheekaysto sheeko mubaaxa shareecadu ma diidana laakiin waktigii oo dhan ha ku dayacin laqwiyay kula gelin dembina yaanay kula gelin saxaabadu markay isu yimaadaan ilahay bay isxusuusin jireen tacaalow bina nu'min saaca bay odhan jireen war ina fadhiisiya wax iimaankeena kordhiya aynu isxusuusine waa in la iswaaniyo mar kasta oo la isu yimaado ilahay xusuusiyo wanaag waxa weeyaan la isfaro ka shaqee ixsaanka iyo samafalka oo ha noqonin qof danihiisoo qura ku kooban danta guud samafalka dadka ka shaqee kuwa baahan waxaad tari karayso ama in wax la taro inaad dhiiri geliso agoonta araamisha iyo dumarka caruurta agoonta haysta fadli weyn baa laga helaa suu rasuulku sheegay ana wakaafi lyatiim fi ljanati kahatayn aniga iyo agoon qofka kafaalo qaataa jannada dhexdeeda saasaan isku nahay buuri rasuulka macanaa meesha uu rasuulku jannada kaga jiro meel ku dhow buu qofkaasi jannada ka gelaya sidaas oo kale waxyaabaa danta guuda ka shaqee deris wanaagga ka shaqee dadka deriska ahi diin iyo adduunyaba inay isu kaashadaan waxay kamid tahay arrimaha aadka inooga maqan waxaa laga yaabaa inaga deriskeena u fiicani sida badan kuwa isnabadgeliya inay noqdaan intaasoo quri inaguma filla waxaa loo deris wanaagga waxaa kamid a in diin iyo adduunyaba la isu kaashado in xaafadda la nadiifiyo xashiishka laga xaadho oo taa la isu kaashado wadooyinka dhagaxanta laga guro la hagaajiyo in sidaas oo kale lagu dadaalo inaaratu shawaaric arrin aada muhiima inaad laambad ku xidho gurigaaga hortiisa ama biraha u dhow oo qolada leyrhka ugu yeedho waa la iftiinsanaya intaa la iftiinsanayo o dhan ajar baa kaaga socon doona iskaashiga wixii xun ee xaafadda kusoo kordha in meel looga soo wada jeesto ilahay baa yihi watacaawanu cala albiri waataqwa walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan wixii wanaagsan isu kaashada wixii xunna ha isu kaashanina iska waaniya oo qofka samaynaya ka reeba sidaas ayuu yihi ilaahay subxana watacaala fi lqur'aan alkariim nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi axabu nnaasi ila allah anfacuhum linnaas dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay kuwa ugu waxtarka badan waxaan kusoo gebagabeynaya dhibaatadaada ha laga nabad galo dadka haddaanad wanaag ku kordhinahayn iyo waxtar ugu yaraan dhibkaaga ha ka nabad galaan carabkaaga iyo gacantaadaba dadku ha ka nabad galaan rasuulku wuxuu yihi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadi muslimka dhabta ee islaamnimadiisu dhamayska tiran tahay waa qofka carabkiisa iyo gacantiisa laga badbaado carabkaagu yuu ku halaagina ka adkow khayr ku hadal sharna ka aamus waad ghaniimeysan doontaa man kana yuuminu biاllahi walyawmi alaakhir falyaqul khayra aw liyasmut qofkii ilaah iyo aakhiro rumaysani khayr ha ku hadlo haddii kale ha iska aamuso aamuskaa kuu dhaama hadalka sharka ah ee dembi lagaaga qorayo noqo ugu dambeyn qof qalbi fiican oo haddii dadka qaarkood ay ku khaldamaan iska cafinaya
faman cafaa وaأصلaxa faأjruhu calى الlah. qofka cafiya ee saamaxa ciddii dhibaato ku samaysa cafis waa hagaajinaya, ajarkiisu ilahay agtiisa u yaala, xadna looma sheegin, waxa ilaahay lagu xawilayna wax aad iyo aad u weyn. idfac bilati hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaana waliyun xamiim. hadalka xun ee lagugu idhaa mid lamida ama ka daran ha ka horgeynin, mid fiican ku jawaab, taasaa xaaladda bedeleysa. shaydaanku wuxuu ku odhanaya wax iska celi, doqoniimuu kugu kuuqinaya oo yaan la odhanin qofkani waa doqon iyo waxba iskama celiye waa fulaya. waxaas ha dhegaysanin yeedhmadiisa iyo waanadiisa, ta ilaahay dhegayso, wanaag adigu ku jawaab. qofkii ku xumeynayay isagaa isbedeli doona, oo qof aad kuugu dhow oo adiga ixtiraamo oo ku jecel ayuu noqon doonaa. ilahay baynu subxana watacala weydiisanaynaa inuu nolosheena ka dhiga nolol fiican oo ilaahay raalli gelisa, aakhirana aynu ku intifaacno. dembigeena iyo dembiga waalidkeena ilaahay ha dhaafo, rabbina hadalkaasi aynu maqalay dhammaanteen ba haynagu anfaco. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سؤالها أختي وهي waqtigii oo dhacay aawadeed su-aalaha waxaan ka dhigi doonaa laba su-aalood ugu muhiimsan. inta kalena sheekha mar dambe aynu insha allahu tacaala weydiin doonaa. culimadii kalena weynoo joogtaa oo masaajidkeena laftiisa waxaa ka socdaa dowladii iyo muxaadarooyinkii weli majaalis baa jirtaayada lafteeda culimada su-aal lagu weydiin doono. waxaan ka horeysiinaya labada su-aalood. hooyooyinku iyagu waa caadi, laakiin hablaha kuraasida inamadu ay soo saareen, inamadii soo saaray way tegeen. marka waxaan ka codsan lahaa habluhu hadhow joole insha allahu tacaala inaanay ka tegin ganaasyada furan inay kusii xareeyaan kuraasida laynoo soo saaray, inamadu ay noo sii diyaariyeen. su-aasha koowaad waxay tahay, gabadh baa waxay tiri reerka ayagu waxay dhigtaan mawliid 12 12keeda, aniga waxaa laygu qoraa khudradda iyo raashinka, iyaguna waxay soo iibiyaan adhiga. sheekh maxay diintu ka qabtaa? ilaahay subxaana watacaala wuxuu inagu waajibiyey inaynu kelidii caabudno, iyo waxaynu ku caabudaynaa inuu noqdo wixii ilaahay noo jideeyey inoo sharciyey. ujeeddadu hadday tahay in ilaahay la caabudo loo dhowaado, waxay nagu filan intii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku caabuday ee uu inoo sheegay qur-aanka iyo xadiidka nebigana ku cad. waxaasina wax nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey maaha, waa camal iyo shaqo diineed oo nebiga dabadii dadka qaarkood ay keeneen, waa bacda nebi. marka waxba naftaada ha ku daalinin, waxyaabaha lagu jideeyey lagu sharciyeeyey ee ilaahay uu ku yihi igu caabud, ama nebi maxamed ilaahay uu ku caabuday, kuwaasi ku dadaal. camal iyo shaqo aan diinta kamid ahayn waktigii nebiga oo dabadii la keenayna waxba ha ku bixinin xoog iyo xoola midnaba ha gelin. wallahu aclam. su-aasha labaad waxa weeyaan, sheekh salaada subax marka la aqiimo waxaan u fahmayo salaadii subax ayay tukatay, sunnihii baa ka tegay. marka sunnaha salaada subax ka horeeya kadib ma tukan karaa marka faralkii tukado? sunnihii salaada subax ka horeeyey iyo salaadaha kaleba haddaad ilowdo, amaba se aada istiraad faralkii oo ku dhaafi doone horta faral ka gaadhsii, faralka dabadi waad qallayn kartaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam sunnihii duhurka ka dambeeyey dad wafdiga u yimi markii ay ka mashquuliyeen, salaada casar dabadeed buu rasuulku sunnihii duhur ka dambeeyey uu tukaday. marka sunno kaste oo kamida sunnayaasha la socda salaadaha faralkaa, haddii salaada faralkaa waktigeedu uu baxo odan weli tukan, ama sunnahaas uu yahay kii ka horeeyey salaada, salaadii aad tukato adoon weli aan tukan, waad qallayn kartaa. wallahu aclam. sala allahu calaa nabiyina maxamed.